عليو دون ضرورتيو عدد باطو عالم كالزمان نور عاوزيه عالم كالزمان نور عاوزيه عليو دون ضرورتيو عدد باطو عالم كالزمان نور عاوزيه عالم كالزمان نور عاوزيه فرحتي قلتو عارفي ما تليه عالزمال غير سنبا عود لكيو فرحتي قلتو عارفي ما تليه للعشيه عمري جيت جيرو عذو لا تبيو على يهو هدعي عليو درتا كذرتيو متاع ولمبان ماكو عابيو وانكو عاشقي ماكو عابيو وانكو عاشقي عليو درتا كذرتيو متاع ولمبان ماكو عابيو وانكو عاشقي ماكو عابيو وانكو عاشقي سنبات عود لكيو فرحتي قلتو عارفي ما تليه سمراعي
irsanbaad cawadhalatayo farxadigu cugto عليه الودون ضرورة عدعد باطه عالم كالزمان نور حاوسيه عالم كالزمان نور حاوسيه
waana xubin ka tirsan safaaradda Soomaaliyeed ee Malaysia ku mahadsan sida qiimaha iyo qaayaha leh oo hadalkiisa noola sheergareeyay waxaan filayaa barnaamijku hadal badan ahaan ma buuxsho hadaladuna isku xigi doonaan waxaan u dhaxaysiin doonaa heeso murti iyo madadaalo gabay iyo geeraar iyo qoobka ciyaar walaatan in idinku fadhiya si diiran aan idinku soo dhaweeyo wiil jalaqsan oo barnaamijka caawa nagala qayb qaadan doona aanu jecel lahay inuu ku soo dhaweeyo isimada fanka iyo fanaanimada KL waxay yihiin nadso ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala halkan keen isugu keenay caaway waxay noo tahay farxad waxay noo tahay reereyn waxay noo tahay soo dhaweyn inaanu caawa halkan kula caweyno oo aan halkan xafladan aad iyo aad qiimaha badan u leh oo sida maamuus kale looga soo shaqeeyay aanu idinkaga qayb qaadano ardada Soomaaliyeed ee Malaysia wax ka barata waxay noo tahay habeen taariikhi ah oo aanu inta aanu noolahay aanu xusuusan doono waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo shaqeysay fikirtay isku hawshay waqtigooda u huray in xafladani qabsoonto caaway waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna ha idinka abaalmariyo waxaan isleeyahay hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina la ya'lamuun sida ilaahay quraankiisa ku yiri ma eegyihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanayn waxaad tihiin asxaabul cilmi asxaabtii wax garanaysay waxaad halkaan u timaadeen inaad wax barataan mustaqbalkiina dhistaan dadkiina iyo dalkiinana aad berito anfacdaan dalkaani waa dal qurba ah oo waliba inaka fog kumaankum kiiloomitir inaka soo fog waxa ina keenay waa dana gaar ah idinka waxa idin keenay waxbarasho aad ka soo doonateen sababaha dhaliyana waxay tahay inaad halka timaadaan oo kumaankum mayl aad soo aadaan oo aad ka timaadaan ehelkiinii aad ka timaadaan walaalihiin aad ka timaadaan waalidkiin aad ka timaadaan dalkii aad jecleedeen oo aad ku nooleedeen oo aad ku soo barbaarteen oo inta ku soo leekaateen waxa weeye wixii aad rabteen baad ka weydeen dalkeenni waxaana keenay burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay Soomaaliya waxaad la socotaan 22 sano in dalkeennu ku soo jiray burbur dawlad la'aan dagaal sokeeye isku kalsooni la'aan barakac kala qax is-aamin daro walina arrimahaas ay jiraan inkastoo wax badan laga xalilay waxaan isleenahay haddii la helo sidiinaan oo kaleeto ummad wax baratay aqli u saaxiiba dhalinyaro ah banaanada iyo dibadaha tagay arkay sida loo wada nool yahay sida wax loo baranayo sida ummadu dalkooda u dhisanayso sida la isugu kalsoon yahay sida system iyo nidaam loo sameystay markay dalka ku noqdaan inay wax ka bedeli doonaan waxaad la socotaan dalkii Soomaaliya markuu gumaysiga ku jiray 13 dhalinyaro ah oo la oran jiray ururka SYL ayaa waxay fakareen inay u kacaan oo ay soo ceshaan xorriyadii Soomaaliya oo ay taagaan calanka aynu maanta haysano inkastoo xorriyadaas iyo qarannimadii la helay aynu dib u duminay haddana waxay xusuus mudan yihiin dhalinyaradaas meel kasta in laga xuso waxa kale oo xusuus mudan in la isweydiiyo dhalinyaradaas maxay ku gaareen heerkii ay gaareen maxay ku gaareen inay gumaysiga kiciyaan maxay ku gaareen inay Soomaaliya oo dhan rubuceeda ama dhinacyadeeda ay xafiis ka furtaan maxay ku gaareen inay dadka Soomaaliyeed ka dhaadhiciyaan inay wada jiraan oo ay gumaysiga iska kiciyaan maxay ku gaareen waxay ku gaareen oo muhiim u ahaa laba shay koow inay ahaayeen dhalinyaro midaysan isku hadaf ah oo yool leh labo inay iska dhaarsadeen oo ay khaali ka dhigeen
cudurka dilaaga ah oo Soomaaliya maanta baabi'iyay oo loo yaqaan qabyaaladda saddexda dhalinyarada ay markay isu yimaadeen oo ugu horeysay waxay kitaabka Quraanka inta soo qaateen nin kasta gacanta saaray in uusan nin kasta qabiil matalin xaflad soo dhaweyn ardayda ay soo qaban qaabiyeen Puntland Malaysia wax ka barata ay ka soo qayb galeen ardayda Soomaaliyeed Malaysia wax ka barata mas'uuliyiinta safaaradda jaaliyadda iyo ummadda ku nool Malaysia ay ku soo dhaweynayeen isimada annaguna waan ka mahad celinaynaa waxaan u dhacday si sharaf badan oo loo qaadan karo Soomaali midnimadeed iyo isku tashigeed iyo caloolfiyoobaanteed waxaan leenahay intii soo qaban qaabisay iyo intii ka soo shaqaysay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo ilaahayna haynoo ka dhigo midii la isugu soo ururi lahaa oo tawfiiqda iyo talada toosan laga qaadan lahaa aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan Soomaali weyn iyo inta media iga daawanaysana waxaan leeyahay Soomaalinimo iyo midnimo iyo horumar wax lagu waayo talaaqo lagu heli maahay cid kasta oo caalamka joogta inay u hunguriyoto resourcekeeda iyo khayraadkeeda ama biinteeda marka si aynu waxa arrimaha uga waantoono dadka aqoonta leh waxaanu ku boorinaynaa wadankeena ku noqdaan dadka mas'uuliyiinta wadanka ka ahina inay Suldaan Cabdullaahi Janaade Suldaan Bashiir gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed brother Cabdullaahi xubinta safaaradda inagala joogta macallin Jamaal oo ah ganacsade Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed ee caawa meesha fadhiya marti sharafta rag iyo dumar bale waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa caawa inaan xuso raaligelinna ka bixiyo somehow calanka meesha ku dhagan waa calankii Puntland iyo calanka Soomaaliya laakiin isimadu sidaan ognahay ma lahan xuduud waa isma Soomaaliyeed waxay naga soo booqdeen hadirtaan deegaanka Puntland laakiin isinku ma ahan xubin gooni ah Soomaaliya oo dhan bay isin u yihiin ismada waxaan leeyahay karaale ahada mistake aan sameynay waxaan nagu soo dhaweynaynaa anagoo Soomaaliya oo dhan oo gacmaha haysanna Malaysia ku soo dhawaada Malaysia waxaan rabaa inaan xuso una mahad celiyo hablaha reer Puntland oo mar walba u taagan midnimada qurxinta sharafta isku xirnaanta ummadda Soomaaliyeed qayb weyn ka qaata runtii barnaamij walba aan qabano waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u xiliyo gabdhaha reer Puntland aad u mahadsantiin waxaan rabaa inaan xuso barnaamijkan inaan soo qaban qaabin anaga kaliya jaaliyada Puntland waxaan nala soo qaban qaabiyay ururka ardayda Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaatay runtii la'aantoodna aanan anagu dhaqaaq karin oo baalasha aan ku duulayno ay yihiin maaragtay madaxda naga sarreysay ururka ardayda Soomaaliyeed ayagana mahad gaar aan u celinaynaa runtii waxaan rabaa inaan xuso anaga jaaliyada Puntland waxaan mar walba u taaganahay isku xirka ummadda Soomaaliyeed xaqiiqatan waxaan caaw meesha fadhiya madaxdii ururka ardayda Soomaaliland qaybtooda way fadhiyaan madaxdii ururka ardayda Soomaaliyeed way fadhiyaan annaga iyo magaca jaaliyada Puntland ku hadlaynaa waan joognaa taas macnaheedu waxay ku tusinaysaa mar walba inaan anagu nahay dadka isku xiraya ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogta dhammaanteed ma rabo inaan hadalka ku dheeraado caaw sharaf bay noo tahay xaqiiqatan dhammaanteen reer Malaysia inay gufuud noocaan oo kale ah inoo yimaadaan waxaan baranay xubno wasiiro ama madaxweyne ku xigeen ama xubin dawlad inay noo timaado laakiin waxaan rabaa inaan caaw xuso intaas oo dhan inay ka qaalisan tahay isinka uu ka qaalisan yahay isinku saad ogtihiin ma lahan mandate ma lahan waxaan u maleynayaa inaan maqal isin xil laga qaaday ama isin xil wareejin sameynaya ee aad inta badan aragtaan isin dhintay laakiin xilka marka uu dhinto laga dhaxlo sidaas darteed waxaan leeyahay nimanka mas'uuliyiinta caawan la joogtay ismada ah waa xubnihii ugu sarreeyay ama ugu miisaanka cuslaa ee abad intan Malaysia joognay runtiina soo booqda sharaf bayna noo tahay dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
dhammaan marti sharafta kala timid dhammaan ardayda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka kariimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa ardayda soo agaasintay xafladan aad u quruxda badan juhdi badan ku bixiyay xafladda ay ahayd soo dhaweynta isimada madaxda reer Puntland waxaan leeyahay ku soo dhawaada hadalkan inaan ku sii dheeraado maro runaantii waxaan rabaa inaan hal qodob ku sii daro Malaysia ku arkay runaantii ardayda Soomaaliyeed ee reer Puntland waa arday aad isugu xiran dhan walba dhanka waxbarashada dhanka isu imaanshaha dhan walba waxaan leeyahay ku sii wada waana maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aan soo dhaweynay Suldaan Cabdullaahi Saalax Jeen Cadde iyo Suldaan Bashiir Muuse Koonte ee nagu yimaadeen nagu soo booqdeen Malaysia farxad aan la soo koobi karin bay noo tahay inay soo booqdaan isma Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu riyaaqnay xafladda tan aanu ka soo wada qayb galnay dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed oo lagu soo dhaweynay ismada aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليه الودون ضرورة عدد باته عالم كالزمان نركوحا وثيه عالم كالزمان نركوحا وثيه